والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، waxaynu ka bilaabaynaa aayadda 148 ee ka mid ah suuratu النisaa. qaala allahu tacaala, ilaahay baa wuxuu uhi laa yuxibu اllahu, ilaahay ma jecla aljahra in kor loo qaado bisuu'i min alqowli, hadalka xun, ilaa man dulima, qofka laga gardaran yahay mooyaane. wa kaana allahu, ilaahay wuxuu aaday samiican caliiman, kii wax walba maqlaya wax walba ogsoon. in tubduu khayran, haddii wax wanaagsan muujisataan, aw tukfuuhu ama aaqarisaan, aw tacfuu can suu-in, ama shay xumaana iska dhaaftaan, fa ina allaha kaana, ilaahay wuxuu ahaaday cafuwan qadiira, kii cafis badan ee wax walba kara. ina aladiina yakfuruuna, kuwa ka gaaloobaya billaahi wa rusulih, ilaahay iyo rasuulladiisa, wayuriiduuna doonaya an yufariquu inay kala saaraan bayna allaahi wa rusulih, ilaahay iyo rasuulladiisa inay kala saaraan doonaya. wayaquuluuna odhanaya waa siday u kala saarayeene, nu'minu bibacdi, rasuullada qaarkood baanu rumayn, wanakfuru bibacdi, qaarna waanu ka gaaloobi. wayuriiduuna doonaya an yattakhiduu inay ka dhigtaan bayna daalika, kaa la soo sheegay dhexdiisa, waa gaalnimadii iyo islaamka wax u dhexeeya, sabiilan waddo. kuwa intaas sameeyey, ulaa'ika kuwaasi humulkaafiruuna xaqa, waa gaalo dhaba, gaalo gaalnimadoodu caddahay weeye. waactadnaa lilkaafiriina, gaaladana waxaan u diyaarinay cadaaban muhiinan, cadaab dulleeya. waaladiina aamanuu billaahi wa rusulih, ilaahay iyo rasuulkiisa dadka rumeeyey, walam yufariquu, aan kala saarin bayna axadin minhum, rasuulladaa aan kala saarin ee wada rumeeyey. ulaa'ika kuwaana sawfa nu'tiihim, hadhow baanu siin doonaa, sawfa yu'tiihim, hadhow buu ilaahay siin doonaa ujuurahum, abaalkooda. wa kaana allaahu, ilaahay wuxuu ahaaday yahayna gafuuran raxiima, mid dembiga dhaafo oo naxariista. aayadaha hore waxaa ilaahay uu kaga soo hadlay afxumo badan oo nimanka munaafiqiinta dhaqan u ahaa, oo ay muslimiinta ku hayeen. waxaa halkan ilaahay uu ku caddeeyey afxumada kor loo qaadayo, ee islaamka dhexdiisa lagu faafinayo, ee lagu kala dilayo inaanu ilaahay ogolayn. hadalka xun ee kor loo qaadayo inuu ilaahay diiday, ee dhaqanka munaafiqa u noqday, ee dibadda u soo baxaya. markaa ilaahay wuxuu ihi hadalka xun ee kor loo qaado ilaahay ma jecla, macnaheedu wuu necab yahay wey. haddii lagu hi ma jecla, wuu necab yahay. mar quruu ogol yahayo waa marka qofka la dulmiyo, marka qofka lagu gardaroodo ee uu gardaradiisa sheeganayo, qaadiga hortiisuu ka sheeganaya. sidii xaaskii abi sufyaane hinde la odhan jiray intay nebiga u timid ayaa waxay tihi, ina abaa sufyaan rajulu shaxiix, ninkayga abi sufyaan waa nin bakhiilah. waa hadal dee kor loo qaadoon ku habboonayn qofkii oon weliba joogin. waa ruuxii dumar ahaayoo garsoorka hortiisa ka cabanaysa, ama qofkii oo qof kala dulmiyey. siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mar kale, layulwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubata, qofkii xoolo ama dayn lagu lahaa ee dadka waxoodii siin waaye warwareejiyey, taasi waxay xalaalaynaysaa in cirdigiisa wax laga sheego la ydhaa waa daalin, waa mid wax booba, qaadiyo wuu iboobay, waa daalin, wuu idulmiyey. iyo in la cuqubeeyo qaadigiina u xidho, isagoo helaya ayuu markaa xadgudbay. waxaa kaluu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mar saddexaad, laba qof hadday iscaayaan, kacayda bilaabay ayaa wixii labada qof yidhaahdeen dembigoodiiba saaran yahay, haddii aanu kii lagu bilaabay ka badinin. almustabaani maa qaala facala albaadi'i minhumaa maa lam yactadi lmadluum, xadiidkii saxiixa ah. laba qof baa isu kala tiriyey, ka hore markuu idhaa kalen wuu jawaabaa, dee wuu ka ridanaya, waa la kala ridanaya.
markaa kii horunbuu dembigu saarayo balaayada isagaa bilaabay haddii laakiin ka dambe uu ka badiyo uu la qaybsaday arrimahaasoo dhan waxay sheegayaan xaaladaha qaarkood inuu qofku wixii lagu sameeyo sheegan karo waxaa kaloo jirta haddii maalan qofka lagu qasbo hadalka xun dembi kama saara gaalnimaa lagu qasbay waxaa lagu qasbay inuu waxun ku dhawaaqo cid caayo markaa ilaa man dulima qofkii la qasbay bay markaa noqonaysa ukriha oo gardaro ayaa lagaga yeedhsiiyey marka taasina dembi ma leh waxaa kaloo iyadana soo gelaya habaarkii qofku haddii qof waxuu ku sameeyo habaaro dee macnaheedu waxa weeyaan waa la dulmeeyo dembi isna kuma leh arrimahaasaa lagu fasiray qofku hadduu khayr muujiyo iyo hadduu qariyo iyo hadduu cafis sameeyaba ilaahay baa cafis badan oo wax kulaba kara oo isagoo aanay itaaldara haynin ilaahay ayuu wax cafiyaa adiguna cafi cafisku ilaahay jeclaysiinaya addoomaha aayaddan 150 ilaa laga gaadhayo intaa 161 ilaa 16 ceebood oo yahuudi iyo nasaaradu ay lahaayeen ayaa ilaahay u isdabagelinaya aayaadka dhowr iyo 10 ah ceebaha gaalada hore yahuudi iyo nasaarada oo kuwii hore waxyaabaha qaar samayn jiray kuwana way ku waafaqsanaayeen in kaleona kan xunna way sameeyeen ceebahan wuxuu qur-aanku u tilmaamayaa si looga baydho loona ogaado waxayiin waa laba arrimood qofkan isu kaa macaanaynaya ama adiga qudhaado aad ka daba dhacday wuxuu yahay garo ilaahay abuuraa kaaga soo warramay waa mid iyo inay xumaantaba ku abtirsadaan oo hal waddadii aabbayaashooda ay mareen u beeyanahayaan iyo in adigana lagaaga digoo la yidhaahdo dadkaasi waxaasay ku rogmadeena iska daa waa faa'iido weyn dad baad nolosha soo tijaabiyay oo waxaa ku soo fashilmay 16 kan arrimood ay ilaahay isdabagelinaya kaasay sameeyeen adiguna raadkii ha raacin in waxyaab ceebtooda ugu horeysa waxay ahayd إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلهي رسوشي سكال الرئبين إلهي والرميسان عيسى والرميسان نبي قارنا إلهي والرميسان النبي موسى والرميسان نبي قارنا واسيا يهودا دي وحبك ما تشران إيمان كودا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك السبيلا بين ذلك قال لما على صوت شيء إسلام لما على صوت شيء لبدا نحدو ذي هذين نص ما تشرو الله وجوابه كواس waa gaalo dhaba gaalna cadaab dulayaan u diyaariyay iimaanka saxda ayaa leh iimaanka saxda ee waafiga ee dhamayska tiran ilaahay u jecel yahay waa amaano wuxuu waladiina aamanuu billaahi wa rusulihi ilaahay bay rumeeyeen rumayn dhaba wuxuu xaq u leeyahay oo dhan bay siiyeen amarkiisii bay qaateen wa rusulihi rasuuladiisii oo dhan anbiyadii ilaahay uu soo diray miduu sheegay uu quraan ku sheegay mid aanu sheeginba way wada rumaysayn walam yufarriqu bayna ahad minhum ahad ka bimaana ahada way ahad kuwa macna badan buu muujinaya walam yufarriqu manay kala saarin bayna ahad minhum waxa ahad lama kala saaro waa mid kaliya laakiin macnihi baa wuxuu ka dhigan yahay bayna ahad min haulaa rusul rususha la soo diray may kala saarin oo may odhanin nu'minu bibacd wa nakfuru bibacd iyagaaba iska cadaysanaya kaa waanu diidnay kaana waanu rumaynay ma odhanayaan sidii kuwa way wada rumaynayaan kuwa ilaahay baa ballan qaaday inuu abaalkooda siinayo dembi waxay galeenna ka dhaafayo una naxariisanayo saasuu rabbi caddeeyey subxaanahu watacaala marka dhaqankaasi waa dhaqanka iimaan laawayaasha in loo kala qabyaaladeeyo oo loo kala abtiriyo loo kala cunsureeyo rususha ilaahay laakiin awliyada ilaahay saas uu ilaahay ku amaano markaynu macnaha guud ijmaaliga iyo laqbada inta ku soo dhaafno tawjiihaat fi hada dars dariskana waxyaabo inoo tilmaamaya waxa kamida inna mimma yuhibbuhu Allah inna mimma la yuhibbuhu Allah ma yunshiru al-karahiyata bayna al-ibad min sunuf as-sibab as-sabab waxyaabuhu ilaahay aanu jeclayn ee nacayo waxa kamida wixii adoomaha dhexdooda nacaybsiya ku abuuraya dadka muslimiinta ah ee ehelka ee walaalaha nacaybsiya ku dhex abuurayo
cayda noocyadeeda ah marka cayduna qof mu'mina dhaqankii maaha rasuulku wuxuu yihi salى اllahu عalayه wasalam sibaabu اlmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufr qofka muslimkaa inaad caydaa waxa weeye alla ka fogaansho ilaahay baad kaga durkaysa inaad la dagaalantaano waaba gaalniba buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka jidhkiisana waxba ha yeelin cirdigiisana waxba ha yeelin ujeeddooyinku islaamku u yimi waxaa ka mid ah in asturaadda iyo aadaabta wanaagsan iyo ummadda ururinteeda waxyaabaha aynu ka faa'iidayna waxaa ka mid ah ina alislaama la yaxmi sumcata annaas maa lam yadlimuu dadka islaamku sumcaddoodu ilaalinaya waxyaabuhu nebigu inoo dardaarmay bay ka mid tahay dadka in la ilaaliyo maalkooda naftooda iyo cirdigooda ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada sidaa muqadasaadka iyo bilaha xurmada leh xurmo u leeyihiin qofka mu'minka ah wuxuu leeyahay iyo naftiisa iyo sharaftiisuba xurmay leeyina ku xisaabta sumcadda ha loo ilaaliya baa ilahay uhi intuu qofku sumcaddiisa ilaalinayaan waxba dulmiin fain dulimuu wadalamuu intisaaran waintisaafan jaaza qofkii la dulmiyey hadduu isaguna kor u qaado codkii ama uu jawaab bixiyo jawaabta sababta uu bixinayaana waxa weeye intisaaran waintisaafan intisaarku waxa weeye intii lagu sameeyey leeg buu qaadanaya waa la ogol yahay inaad cadaalad qaadato wixii lagugu sameeyey wax leeg garsoorku kuu gooyo waa la ogol yahay waa intisaafan iyo intisaaran marka macnaheedu waxa weeye fadeexadayn iyo xumayn iyo dulmin maaha ee wixii lagugu sameeyey baad adiguna ku xisaabtamaysa qabla an yandiqa almadluumu bishakwaahu falyaclam ana allaha saamicuhu falyaqul ilxaqa duuna dulmi markaad had iyo jeer dulmiga sheeganaysa laftigeeda ku xisaabtan inuu ilaahay ku maqlayo subxaanahu watacaala marka ha korkordhini waa lagu ogolaade ka badi ha odhan haddii lagu yihi waxbaad kor u qaadi kartaa iyo wixii xaqaagii waad qaadan kartaa ha ka badinin adiguna sidaa uu nebigu uhi maa lam yactadi lmadluum qofkii la dulmiyey haddii aanu xadgudbinoo taana macnahana waxaynu ka fahmaynaa wa kaana allahu samiican caliima ilaahay ku fasax laakiin wuu ku maqlayaa wuu ku ogi waxaa lagugu cudur daaray kaa hore oo ku dulmiye adigu ha sii dulmiin bayna ibtidaaءi اlkhayri wa ikfaa'ihi wa bayna alcafwi can isuuءi wa idhaarihi yakhtaaru اlmu'min alaqraba ilaa cafwi rabbi waxaad samaynaysaa ama muuji ama hoos u dhigo waxaad qiimeynaysaa waxa weeye cafiska ilaahay baa kuu daran faina allaha kaana cafuwa qadiira waxaa lagu yihi haddaad khayr samaysay iyo haddaad qarisay iyo haddaa wax cafido hee jawaabtii waa maxay wuxuuna kugu soo booday uun ilaahay baa cafis badan isagoo weliba awood leh marka adiga laftigaagu adigoo awood lahoo aar goosan kara ilaahay ku dayo ilaahay mar hadduu awood leeyahay oo addoommaha uu iska cafiyay adiguna iska cafi waa ka nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ah inaanu shayga la idhaahdo cizigu inaanu shayga la idhaha cafisku cisi mooye wax kale u kordhinin cisi unbuu kuu kordhinayaa cafiskaad bixisaa laakiin dad badani siday aaminsan yihiin doqoniino iyo nacasnimo kuuma kordhinayo marka jeclaysiin weeye ilaahay uuna jeclaysiinayo cafiska isagoo qadiira buu haddana cafuwan yahay isagoo kara gaalka aad arkaysa kibray ee isku kaajaya ee dhan walba adduunyadii xumaan u riday isagoo ilaahay mar qura ka tirtiri kara adduunyada oo awooda ayaa haddana ilaahay dulqaadkiisa uu ku daayey wakti baa lala sugayaa waxaynu ka fahmaynaa aayadaha altafriiqu fi اliimaani bayna الshaarici wa xamalati sharcihi baaطil ilaahay shaaric ahaa iyo rusushii sharcigiisa sidee baan kala saarayaa haadaa baaطil arrin buraysa wey ilaahay shaaric ahaa ee sharciga keenay xamalatu sharci buu ayuu sharcigii buu cid u soo dhiibay rusul ah marka inaad tidhaahdo waan kala saaraya ilaahay baan rumaysanahoo rusushana qaar baan rumaysana waa baaطil taa waxaa la mid ah ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu u soo dhiibay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam sharcigan cid baa ka reebay waa asaxaabatu ridwaan ullaahi calayhim asxaabtii nebi maxamed
marka firqadaha aan baday muslim sheegtay asxaabta caaya sida shiicada oo kale asxaabtii bay caayeen rasuulkana waa jecel waa rumaysanay bay leeyihiin asxaabtii xamalatu sharci ahaa sharciga ka soo qaaday ayay iyagiina caayayaan wahada baatil sida kuwan loo eedeeyay kuwaasina u eedeysan ila kuwa waxa lagu haystaa ilaahay waa rumaysanay rusushiisina qaar baanu diin marka inaad tiraa rasuulkaan rumaysanahay asxaabtii nebi maxamedna waan caayaya waa guuldaro iyo xaqdaro man istahaana bidiin illaahi faqad baaca nafsahu lihawaani laakhira qofku hadduu diintii ilaahay diiday cisi waa ka dheeri waactadnaa lilkaafiriina cadaaban muhiinan waxaad u diyaartay kol haddaad diinta ilaahay diiddo dulli qofka kibra waa qofka xaqa diida buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam kibirku maaha buu ihi dhar wanaagsan kaba wanaagsan oo la xidho laakiin albataru can ilxaqi wagamdu nnaas waa xaqoo laga santaago iyo dadkoo la yaryaraysto oo adigu aada isla weynaato marka ciddii kibirta isagoo quraanjada leeg buu ilaahay naarta kaga aargoostaa marka haddaad sharciga ka kibirto ku talagala meel lagugu duleeyaa inay dambayso lowlaa makfirat اllaahi waraxmatu lamaa naala almu'minu ajrah falaa yagurana caamilu bicamali haddii aanu jirin ilaahay dembi dhaafkiisa iyo naxariistiisu qofna kuma heleen camalka uu samaynayo abaalkiisa kuma heleen marka camalkaagu yuu kulu goyni siduu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ogaada buuhi qofna inaanu camalkiisa jannada ku gelayn adiga ka warran bay idhaahdeen aniga laftigayguna inuu ilaahay naxariistiisuna dhex geliyo mooyaane camalkaygu jannada iima goynayo marka falaa yagurana caamilu bicamali qofna yuu camalkiisa odhanin adiga way kuu dhanto adigaa wax weyn kuu gooya camalkaagu marka waxyaabahaasi waa waxyaabaha tawjiihaadkee derisku iyo tilmaamaha ah ee uuna siinayo ahlu kitaabka iyo ayaan daradooda ayaa haddana ilaahay mar kale uu ka sii warrami doonaa aayadaha soo socda wallahu subxaanaه wa tacaala aclam